kamid tahay xildhibaanada ugu cadcad ee golaha deegaanka dabcan waxaan doonaynaa inaan arrin halka ka weydiin oo mawduuca imika shirka jaraa'id qabatay ka baxsan waxa la leeyahay golihiini deegaanku kalfadhiyadoodiina ma qaban dadka kale waxa la leeyahay maayirku iyaga khilaaf weyn baa warbaahinta qaar qoraysa dhex jira in intaad og tahay ogaanta maxaad warkaa naga siin lahayd maayirku xubinka wax khilaaf oo ka jira ma jiro waa war aan saliya raatoona lahayn horeyna marba sidaas oo kale warbaahinaha qaarkood ay u qoreen war aan iska hubin warka dawan baa kamid ahayd ma jeclin imika inaanu hadana inaanu ku noqono warbaahintoona dhaana taasacaynkaas iyo taasacaynkaas ahayd mala awaalku idinkana idinma fiicna annagana nooma fiicna wax allaale wax dhib oo golaha deegaanka dhexdiisa ka jiraana ma jiro wax khilaafina ma jiro haddii ay badankeeda leh hawshaas sidaa idiin sheega weeye kalfadhiyaduna oo waa socdaan kalfadhigayagii toddobaad waxa uu bilaabayay shalay mooye daraato waxay noqotay jimci waa la socotaan xaggana waxaa ka socdaa shirweynihii xisbiga ayaa ka socda sidaa darteed waxaanu isagana maalmahan gudihiisa ayuu qabsoomaya waanu furnaa saas intaas idiin sheegaya wax khilaaf oo golaha iyaga ka jiraana ma jiro golaha iyagu waa golo isku tuuban waa golayaasha hore ka gedisan run ahaantii waa golo dhinac wada socda dhammaantii haddii khilaaf dhexdeeda yimaado markaaba annaga xubno ka mid oo markaaba oo mustabeeda baa jiro golaha ka mid ah oo aanu golayn in khilaafku uu noqdo mid dhumucle ama mid sii xoogaysta oo wax yeeli kara wada socodka wada shaqaynta habsami socodka caasimadda sidaa darteed waa golo dhinac wada socda insha allahu tacaala saasaan usii wada socon doonaa wabillahi tawfiiq.